waxaan rabnay inaan idiin soo dulmarno xaaladaha cudurka coronavirus COVID-19 ilaa iyo maanta tirada shalay waxay ahayd 21 maqribkii waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo biirtay oo magaalada Muqdisho ah tirada guud waxay noqonaysaa 25 ilaahay ha u naxariisto waxaa naga dhintay maanta oo geeriyooday ruuxii labaad uu geeriyooday coronavirus wadankeena wuxuu Allah u naxariistay xildhibaan wasiir مؤمن خليف مؤمن إلهي وحنا وبرينا جنة الكورابي إنتي وكيري وذين السوري ما كسياسة وكل إنتي تأثير تعبطي وحنا رجينا سوري إيمان حالة داسان شكلي وانله كل شني لواتن كودهان لبوان الكيري تلاهم حريسته لبنا وبسكوتي لحية طبعا ويبغى كحكمي سيدي وإسقاطايا shanta kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xalana waa xaalada guud waxaan ku celinaynaa mar walba cudurkii wuxuu ku sii fidayaa bulshada dhexdeeda Soomaalida iyo muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan inay iska xakameeyaan cudurka waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo wacyigelinta inaan ku wada dadaalno in ma aragtay ana meelaha buuqa ay xiriiriga dadka isku dawiyeen aan la tagin in dibadbaxa ilmaha laga yareeyo maadaama iskuulada ay xiran yihiin xafiisyada aan la tagin aan meelaha shirarka la joojiyay in ma aragtay habeenkii in la baxo maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo si kasta oo lagu xakameyn karo ka hortagga waa waxa ugu fiican wadankeena maxamil karo dhibaatada uu cudurkan ku haayo meelaha qaarkood ee adduunka ka dhacday waa dhibaato culus waxaan nahay wadan nugul waxyaalaha aan samayn karno oo aan ku wada dadaali karno waxay tahay inaan cudurkan u aragno cudur aan ka hortagi karno bulshada dhan ay ka midaysan tahay ka hortagga iyo wacyigelinta ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga ilaaliyo annagana aan isku dardaaranno waxyaalaha muhiimka ee loo baahan yahay oo sidan dadka waliba waaweyn ama dadka cudurrada raaga qaba inay isxakameeyaan oo aysan barnaamijyada u bixin is ilaaliyaan laga ilaaliyo dadka inay si salaamaan maaragtay gacmaha in la dhaqdo oo saabuun lagu dhaqdo ilaa iyo 20 ilbiriqsi in maaragtay nadaafadda guud ahaan lagu dadaalo in la iska yareeyo wax kasta oo calaamado khatarta cudurka keeni karta wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka guud ahaan waxay ka bixiyaan wacyigelin sidoo kale culimada takhaatiirta allaale cidii ma aragtay ka wacyigeliso oo wacyigelintiisa qaado ila ogaado la barto waxaan inuu qof kasta ku dhici karo uusan lahayn cadaan iyo madow uu kala lahayn diin kala lahayn laakiin qof kasta uu dhici karo marka waxaan isfaraynaa isku adkaynaynaa haddii alla yiraahdo inaan ku dadaalno cudurkan inaan xakameyno ilaahay dhibkiisa naga haay intii u dhimata allah u naxariisto sabir iyo iimaan allah ka siiyo intii ay ka baxeen ilaahayna waxaan ka baryayaa naxariistiisa janno inuu siiyo iyaga